waxay kala wareegeen talisyadoodii tababarka ay ku tababaran jireen oo shuutinkii qoryaha iyo waxa weeye baalayaashooda tabeelahoodii dadka ay khatalaaniin ama ay afduubtaaniin ama meelaha ajaanibta intay ka soo kaxaystaan ay ku tareerin gareeyaan buurta dhaladeeda taa meelaha ay ku tababari jireen oo wax ku bari jireen bay kale waxa weeye baan kala wareegnay oo ka burburinay dhammaan guud ahaan waxa kale oo lagala wareegay raashimadoodii iyo biyahoodii baagagoodii waxaas oo dhan bay ciidan gacanta ku dhigeen way kala wareegeen insha Allah bidinlaahi kariim waxa weeye si waqti yar oo dhowna waxaan gacanta ku dhigi doonaa kuwa yararkaayo meelaha farxadka ku ah ama ku dhuumaalaysanaya dhulkan dadkii la u dhashay ma ku dhimanaya baa u taagan waqti dhow insha Allah bidinlaahi kariim wuxuu noqon doonaa waqti kaliin ah dhul loo soo dalxiisa ah dhul lagu baashaala dhul aad u qurux badan buuraley ah dalxiiska ku fiican dunida oo dhan insha Allah waxaan rajayn doonaa in aan waxa weeye ay iskugu timaado insha Allah bidinlaahi kariim waqtiga aan halkan ka dhameystirno hawlgalka aad iyo aad baan shacabka Soomaaliyeed ugu mahad celinayaa shacabka reer Puntland oo xilli kasta nala garab taagan taageerada nala garab taagan dhiirigelinta nala garab taagan furimaha nala joogo abwaan waxa weeye fiqi baa nala jooga hadeer oo furimaha hore nala taagan oo af iyo adinba nagula dagaalamaya ciidan yahow maqaam kala shaqadu waa midaan rabay magaciin ha jira daacish baad milil ka keenteen mudnaan gaar ahaad leedihiin marag ilaahay mar baa haray rag iyo howlgal baa meesha loo yimid milatari daraawiishahu maanta ila duula daacish timiraalay gashee muunadday siiya maalintaa raggii qaban kariya macangagiin sooca mamtarkiiyo qoryaha diiradda leh midig ku soo qaada mintid inaad tihiin waa ogee meel u wada jeesta mataankaygii raagow dhaqsoo muqallaskii raadi maqribkii dhufayskii nagala maalinkana guura muuqooda goortaad heshaan mahadnaqoo toogta maqadaha ku rida aakahan maaran loo helina